السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهيجا قاليجا السود وهذا مال وناسن وولاشين حمد علي محمد حلقة أنا جلس عطانا وحمد حال الجنال مالمهان waxa si istaba joog noogu socdo cashiradii macmacaanka waxyaabihii macmacaanka wuxuu quseeyaa cashiradeena ama maxayd muuqaaladeena aan duubanayno insha Allah aniga habeenay ii tahay wuxuu quseeyaa waa keek waxaan rabaa dhowr xabo keeg inaan sameeyo maadaama aniga aan gurigeyga kaliya aan u sameynaynin oo dadyow kale aan u sameynayo oo maxay ahayd dadyow kale oo walaalihii ah ay dhaheen ilaa masuuliyadii macmacaanka adiga ku saarna xamdiyay waxaan rabaa dhowr xabo keeg inaan sameeyo dhowrka xabo keeg aan sameynayo marka sideen u sameynayo hool fududeys hadaan sameynayo 7 xabo oo 14 xabo keega on rabo inaan maxay 14 xabo aan 14 maxay 7 qoys oo kale aan siiyo aan min laba u dhiibo anigana aan kamid ahay maxaan sameynaa ma 14 kaba maanta dhan marba mid miyaan qasaaya maya si ay shaqadu kaaga fududaato adoona daalin maskaxdaada fresh ah u fikir samee okay ani hadda waxaan halkan ku haystaa waa 12 xabo oo ukuna qaybta cadeed ukunta halkaan aan ku soo shubtay oo shaharka cadaa xabki aan dhahay qaybta shaharka jaalaha ahaydna waa kana halkaan aan ku soo shubto waa 14 xabo oo ukuna okay 14 xabo ukunta ah oo aan soo hagaajistay aniga waa tana halkaan ii taala 14 xabo maaha sorry waa 12 xabo waa 12 xabo ukuna 12 kaas xabo ukuna ayaan soo jajabiyay waxaan u soo kala qaybsaday labada baaquli okay 12 kaas xabo oo ukunta waxa rabaa inaan ku sameysto laba keek oo kala nooc ah oo kala weyn waxaan haystaa labadaas bir midaan weeyar tahay ta hoose weyn labadan bir hal maran keegooda qasa waa u kala qaybinaa labada weel oo kala qaybinaa foornadan galina inta labadan foornada ku jirto laba kala ka sii tuuranaya insha Allah isla socod wanaagsan hadda waxa idin la wadaagayo waa fiidiyogan hadda aan duubay wuxuu quseeyaa waa labadan xabo ayuu quseeyaa labadan xabo oo keega ah iyo 12 xabo oo kuna birtaan yar iyo birtaas weyn isla socod wanaagsan insha Allah anna ilaahay ha ii fududeeyo waxaan ka soo bilaabanayaa qaybta cad ukunta qaybteeda xabka ah ayaan ka soo bilaabayaa bismillaah xabki waa qasane ukunta marka saa u kala qastid waxay ka caawinaysaa doolshahaaga wuxuu noqonayaa doolsho jilicsan oo soft ah oo macaan oo loo xiiso cunitaankiisa waxaan ku soo darsanayaa xabkan sokorta shiidan ama adiga gurigaaga ku shiido ama ayadoo shiidan soo jabo sida adiga ku fudud adiga waa garanaysaa Soomaa okay waxaan ku soo darsanayaa 3 qaado oo sokor shiidan iyo hal qaada halfkeed qaadada cuntada oo halfkeeda oo heel shiidan vanilla waa isticmaali doonaa laakiin waa fiidiyowga ugu socdaa wili ha ka ordin ha degdegin dhameyso muuqaalka insha Allah waxaa halkan noogu qasan waa ukunta qaybtii cadeed sokorta shiidneed iyo heelkii waxaan dhiganaynaa meel gaar ah waxaan soo qaatay qaybtii jaalaha ahayd aan isticmaalayo waa bakeeriga shaaha bakeeriga waxaan u maleynaa guri kasta oo Soomaaliyeed uu yaalaa Soomaaliya ah bakeerigana ma yaala ma jirto u maleynayaa bakeeriga labaad teeda kale bakeeriga aad uma soo buuxin waa loo bakeeriyo sokora iyo maxay ahayd 12 xabo ukuna qaybtii jaalaha ahayd waxaan kala ku soo darayaa isku geys hal mar shubtid rug waxa la barbarayaa ma jirto meeshan
hal mar la isku geeynayaa intaan isku qasaya sokortii iyo ukunta qaybtii jaalaha ahayd iyo blue banki saas iskugu soo qasmeen maldahay ani subag ma waxa isticmaalayo idin lama wadaagin markii hore waa blue band ani blue banka aad u isticmaalaan jaalahay hawl badan taalo ma la ogyahay marka waxa waaye la isku daahin vanilla powder aan isticmaalay haddii aad rabin ayadoo biyo waa isticmaali kartaa haddii kale heelkaaga ku ekaysiisan kartaa aniga heelna waa isticmaalo qaybta kale aan kusoo qastay waxaan rabaa keegaas inuu noqdo caraftiisa xaafadaha dariska in la isku soo sheego insha Allah waxaan kusoo cabirtay geedkii caagi blue banka waxaan kusoo cabirtay caanahana aad u kulul yihiin aad uma kulul laakiin waa qandac waa caano aad ani caanaha isticmaalayo okay waa ii qasan yahay soo maaha maxaa ii dhiman ku soo darsanaa baking powder tii yareeda ii taalo iga dhamaata tii weyneeda furaya labada way yaaleen okay bakingka marka isticmaalaysid ma sidiisan qaado ugu soo dara saas ma soo daran ku darsanaa mise ma u soo darsanay marka hore waa isku soo walaaqaya isaga isku soo walaaqaya waa isdhex gelina kii kor jiray iyo kii hoos jiray markaan saa u walaaqo kadib aan ka soo darsanaya cabirka aan rabo qaadada haafkeeda way la yartaa wax yar ku soo daraya bakinka aad uga badisid noloshahaaga dildilaac u sameynaya marka si uusan dildilaacba u sameynin marka horeeto cabirkaaga dhac isku siiso burka hal mar dib ha ku siinin qiyaas ku shubo marka burka ku soo dartid makiinada waa iska deyn kartaa waxaad ku walaaqin kartaa miike ama qoriga yar ee suugada iyo cuntada lagu karsado waxaad ku walaaqin kartaa xurbinkii keega lagu qasi jiray waagii hore laakiin aniga hadeertaan degdeg ayaa igu jira yaa ogaado qof hadda wuxuu dhihi doonaa xamdi xaali burkeeda adeeg badanaa injeedin suu adeeg yahay ma saas u adkaana marka uma adkaanayo waxaa lagu soo darayaa alaabtii la soo qasay marka taasaa soo jilcinayso uu adeeg yahay malahan
waxa ka madmadowna waa heelkii la soo shiiday. okay asxaabe waan soo qasay si qurux badan uu iigu qasan yahay sida aad aragtiin idinkaba. burkii haday adkaa ee fadhiyay soo ma aragtiin sidoo noqday sidaas u jilcay. waxa jilcinayna waa dareemi kartiin waa ukunta shaharkeeda iyo sokortii iyo heelkii aan dib iskaga soo qasay aan markii hore isku soo qasay ayaan dib kaga soo darsaday. marka burkaaga haduu adag yahay ha ka nixin wax kala dusha ha uga darin waxa kugu filan intaas oo ku jilcaya. biraha waxaan ku soo shubtay waa saliid iyo bur meel kasta ka soo maray hadhoweyto kaagaaga iyo sanbirta kaaga harharin iyo sanbirta kaaga dhigdhigin. حبيت يراك soo hareyso qat asxaabay sidaan uu noogu soo baxay keegi labada xababa waa isku mid. marka xabadana soo horbaxday tii kale way ku jirtaa way kala horeeyeen tan weyn aa soo hormartay. bismillaah saxan ay u fiicnaa aan ku gadiyo oo ku qaboobo dushiisa waa aragnaa hoostiisa aragno. lagama sheekeyn karaa idin keegan hadal iyo huhunba ma karo hadal uu ka dhan yahay. waaw hadda waa aragtiin xabadan sidaas ay noogu soo baxdo quruxda badan leh ما شاء الله تبارك الله. waxba lagama qaban karo waa walaashiin xamdi xaali keega gacaaw ay ka shidan tahay xaafada keeg duwo ay ka shidan tahay